بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدان حالة جود إذا كجور كورونا فيروس ماشو مراي ودنك ما أنتو أي تاريخ لحدة بشمي لبض كوني لبعتنك حسوا كورني الصدن السدات حالة دوت أو كورونا فيروس بوزيتيف وحا رجع صدن سداد نوا حوين تمر meelaha uu laga helay nambarada cusub waxa way banaadir oo ah 35 iyo Somaliland oo 3 da'da dadka laga helay waxay u dhaxaysaa inta ka yar 20 sano waa 3% 20 ilaa 39 waxa waaye 54%, 40 ilaa 59 na waxa waaye 31%, 60 sano iyo ka weyna waxa waa ilaa 12 sano 12 boqolkiiba 12 raali hada tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan dadkeena Soomaaliya halkeena waa 873 xanuunka waxa uu geeriyooday 24 saacadood ugu dambeysay Ilaahay u naxariista hal qof oo la xaqiijiyay tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 39 Ilaahay u naxariista waxaa ka bogsooday 12 qofood tirada guud ee bogsootayna waxay isugu tagaysaa 87 mar kale ka hortagga wuxuu ka fiican yahay daaweynta waxa waajib nagu ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan qof walba inuu ka qayb qaato cudurkan sida loo xakameyn lahaa waa la sheegay qofka inuu is dhowro inuusan ka bixin xaafadiisa haddii aysan muhiim ahayn in ma aragtay nadaafada uu ku dadaalo in gacmo dhaqashada saabuunta iyo alcohol iyo wixii loogu talagalay in lagu nadiifiyo ilaa iyo ugu yaraan 20 second in ma aragtay qofka markuu arko calaamadihii cudurka haddii uu isaga shakiyo inuu wacdo nambarada loogu talagalay freega inuu wacdo si dhakhaatiir meesha joogta ay u siin lahayd wacyigelin loo siin lahaa talo sidoo u raadsan lahaa inuu test sameeyo loo jihayn lahaa guud ahaan waxaa nagu waajib ah inaan nafteenana xakamayno ka ilaalino cudurka dadka aan jecelno oo ehelka iyo saaxiibada iyo bulshada inteeda kalena aan ka ilaalino waa waajibna wada saaran waxaan ku dardaarmaynaa mar walba ku celcelinaynaa in cudurkan ka hortagiisa uu yahay waajibna wada saaran in la dhageysto culimada in la dhageysto khubarada caafimaadka wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayaan mar walba lagu dhaqmo in laga hortago inuu faafo cudurka waxaa jira hadda number badan oo la leeyahay waxay u dhinteen cudurka oo aanan laga xaqiijinin waxaa jira dad badan oo xanuunsan waxaan ka codsanaynaa walaaleen hadday isaga shakiyaan xanuunka ay qabaan inay takhtar raadsadaan oo aysan qarsanin xanuunka haddaad qarsato dadkii agtaada joogayna waad u qarinaysaa cudurka waxaad ka dhigaysaa wax aan la kala qaadin oo ay tahay sahal in la isla joogo taasna ma aha siyaasadda guud siyaasadda dawladda waxa waaye cudurkan inuusan qofna nooga dhiman inaan ku dadaalno insha allahu tacaala qadarka ilaaha haya laakiin bani aadam haddaan nahay dawladda waxaa saaran waajib inay dadkeeda ka fikirto in caafimaadkeeda ay ka fikirto inay wacyigelin siiso iyo in xaaladaha soo kordha ee xanuunka markuu soo kacay wax allaale wixii ay awoodo isugu geyso ay diyaariso isbitaallo ay diyaariso qalab sida loo diyaariyay isbitaalada Martiini hadda banaadir lagu wado qalabadii la keenay wadaalaheen Turkida iyo dadkii kale noo soo gurmaday oo qaarkood alaabta inteeda badan maamul goboleedyada loo qaybiyay waxaan diyaar u nahay mar walba inaan idin kala shaqeyno wax allaale wixii macquul ah oo dawladda awoodeeda ah sidii cudurkan loo xakameyn lahaa waa mahadsantihiin wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.